السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ورركا كسمايا كيبل قodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Hirshabelle oo magacaabay guddi la shaqeyn doona midkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay khasaaro xoogan oo ka dhashay meena dad rayadaha kula kacday gobolka Shabeellaha Hoose xog aan idinka hayna isbarbardhig aan ku sameyn doono saameynta Itoobiya ee Soomaaliya xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilliga madaxweyne Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo war dhiilada ka soo saaray xaaladda Itoobiya maxaa ka dhacay sababta iyo waliba macluumaad fara badan ayaan idin la wadaagi doonaa hogaamiyihii Daacish Abu Bakr al-Baghdadi oo lagu dilay howlgal qorshaysan iyo Ilhaan Cumar oo la safatay kurdiyiinta ay ishayaan Turkiga soona saartay dignin qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka Kismaayo Cable haatan u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wareegta ku magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha ee maamulkaasi guddigan oo ka kooban ilaa iyo 14 qof ayaa waxa ay u badan yihiin xubnaha golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Hirshabelle iyadoona gudoomiye looga dhigay wasiirka gargaarka maamulkaasi Cabdi Mahad Cabdullaahi Qoorgaab sidoo kale waxa xubnaha guddiga kamid ah gudoomiyaasha maamulada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan guddigani cusub ayaa ka shaqeyn doona sidii loogu gurman lahaa dadka shacabka ee uu saameeyay wabiga Shabeelle fatahaadaha ka dhashay shalay ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ay garab taagan yihiin madaxweynayaasha Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ku dhawaaqay guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha si dawladdu ay u qaadato kaalinteeda wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax miina uu qabsaday mooto ay la socdeen dad shacab mootada oo ahayd nooca feekoonta ayaa miinadu ay haleeshay xilli ay mareysay deegaanka Muuri ee gobolkaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi miina ku dhintay ilaa 3 qof oo saarnaa mootadaasi wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari Cabdibilaaha oo ay la socdeen ciidamada militariga Soomaaliya oo la sheegay in uu waxyar halkaasi ka gudbay gaariga ciidanka iyo waliba mootada qaraxu qabsaday ayaa mas'uuliyiin gobolka waxa ay sheegeen inay ku sii jeedaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ma jirto wali cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi balse inta badan al-shabaab ayaa weerar jidgal ah ku qaada ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM daawadayaal haatan ku soo dhawaada isbarbardhig aan ku sameyn doono saameynta Itoobiya ee Soomaaliya xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilliga hadda ee madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku soo baxay doorashadii ka dhacday Soomaaliya sanadkii 2017 waxyaabihii ugu weynaa ee lagu doortay waxay ahayd dhibaato daran oo ay dalka ka jirtay waxaase muhiimadda ugu weyn ay ahayd in dalkan uu ka baxo saameynta ballaaran ee ay Itoobiya ku leedahay iyo waliba siyaasadda ammaanka Soomaaliya dareenka ka qaybgalayaasha doorashada iyo codbixiyaashii baarlamaanka ee ku sugnaa hoolka doorashada waxa rogay hadal uu jeediyay xildhibaan Zakariya Xaaji Maxamuud Cabdi oo ahaa musharax madaxweyne iyo fariin gobaabin ah iyo dardaaran oo ay jeediyeen culimadii lagu marti qaaday doorashadii ka dhacday Soomaaliya 2017 kaas oo ahaa in dalka ay saameyn ballaaran ku leedahay dawladda Itoobiya ayna hadda joogaan hoolka doorashada hadda waxa in la isweydiiyay mudan shalay iyo maanta yaa badan saameynta Itoobiya ee siyaasadda Soomaaliya farqi weyn oo muujinaya hoos u dhac ku yimid saameynta Itoobiya ee siyaasadda gudaha iyo waliba amniga Soomaaliya maanta ma muuqdo balse waxa muuqata in Itoobiya ay qaadatay heerar iyo waliba talaabooyin aysan markii hore ku dhiiran karin taasi oo muujinaysa in Itoobiya ay sii fidisay saameyntii Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligii uu talada dalka hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya waxa ay lahayd saameyn ay ku qalqalgalin karto siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah waxay ku xirnayd inta ugu badan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sidoo kale waxa dalka ku sugnaa General Gabre oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan midowga Afrika laakiin asal ahaan ka soo jeeday dalka Itoobiya Gabre waxa uu ka soo muuqan jiray kaamirooyinka xilliyada ay jiraan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya balse hadda waxa galay xubno badan oo saameeyay isbedelka ka dhacay Itoobiya Xasan Sheekh Maxamuud saaxiib dhow uma ahayn Itoobiya mana jirin cadeymo muujinaya in Itoobiya uu ku xiran yahay balse waxa uu ku qabay dhib waxaana loo adeegsan jiray dawlad goboleedyada ayadoo ay dhacday in marar badan uu warbaahinta ka sheegay in dalalka dariska laga soo abaabulo shirarka ka dhanka ah dawladda Soomaaliya halda oo uu talada hayo madaxweyne Farmaajo Itoobiya waxa ay maanta Soomaaliya ku leedahay saameyn ballaaran waxaana ay gaartay heer aan la filin inay gaari doonto ayada oo ay banaanka u soo baxday galaangalka xoogga leh ee siyaasadda
iyo weliba amniga Soomaaliya ee Itoobiya ay ku leedahay saameynta. waxaa jira kiisas badan oo muujinaya in Itoobiya ay isku ballaarisay siyaasadda Soomaaliya isla markaana ay ka fushato dana badan, laakiin waxa ay bedeshay qaabkii markaasi ay wax u qabsan jirtay. halka markii hore gacan saar ay la lahayd maamul goboleedyada, waxa ay hadda la xiratay dawladda dhexe iskana turtay maamulada. waxa ay ku guuleysatay arrimo ay ka mid yihiin kow, Itoobiya waxa ay ku guuleysatay markii ugu horeysay in loo gacan geliyo mid ka mid ah halgamayaasha Soomaaliya ee xurriyad u dirirka Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. labo, Itoobiya waxa ay ku guuleysatay in Soomaaliya ay ka dhigto dalkii labaad ee adduunka ku yaala ee ONLF u aqoonsada argagixiso, halka dalka koobaad uu ahaa Itoobiya oo dagaal ay kula jirtay Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika. ma jira hal dal oo ONLF u aqoonsan in ay argagixisan yihiin marka laga reebo Itoobiya iyo Soomaaliya. inkastoo imaatinkii Abiy Ahmed ay Itoobiya taasi ka noqotay, dawladda Soomaaliya weli kama aysan laaban go'aankii ay ONLF ugu aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso. saddex, Itoobiya waxa ay markii hore la macaamili jirtay maamul goboleedyada oo aan lahayn awood ay ku bixiyaan wax dan guud ah, balse waxa loo adeegsan jiray jabinta qarankooda. balse maanta waxay taas ula macaamishaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna si weyn ugu milantay siyaasadda Soomaaliya. afar, Itoobiya waxa ay shalay taageersaneyd madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ka soo horjeeday Xasan Sheekh Maxamuud markii ay dhacday doorashadii tan ka horeysay, waxayna markaasi u soo doortay wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya, halka maanta ay la safatay Farmaajo oo ay cadaadis ku hayso Axmed Madoobe. arrintan waxa ay muujinaysaa in shalay danaha siyaasadeed ee Soomaaliya laga raadin jiray dowlad goboleedyada, balse maanta laga helayo villa Soomaaliya. shan, inta jeer ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u safray dalka Itoobiya 4 sano ee uu talada dalkaasi hayay, waxaa dhowr jeer ka badan safarka madaxweyne Farmaajo oo xilka haya muddo ka yar 3 sano, welina waxaa u dhiman safarro kaleete. 6, Itoobiya waxa ay bedeshay awoodii xoog ku maquuninta, waxayna u bedeshay in ay la saaxiibto madaxweynaha Soomaaliya loona dhigo ballamo aan miro dhalahayn, intooda badanna lagu mudayo waqtiyo aan dhaweyn, halka qaar kalena looga baxay. 7, ballamaha looga baxay Soomaaliya waxaa ka mid ah in Soomaaliya la siiyo xogayaha guud ee IGAD, waxaana loo magacaabay markii dambe muwaadin u dhashay Itoobiya, iyo villa Soomaaliya oo laga taageero ka hortagga madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo guul darro ku soo dhamaaday. haddana daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka digay in xasilooni darro dheeriyaha ay ka dhici doonto dalkiisa, wuxuuna wacad ku maray inuu cadaaladda horkeeni doono kuwii ka mas'uulka ahaa dhimashada 67 qof oo geeriyooday toddobaadkan. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri, shaqaqooyinkan aan wajahnay waxay noqon doonaan kuwa intan ka sii badan oo adag haddii aysan dadka Itoobiya u midoobin oo aanay mid noqon. waxaan si adag uga shaqayn doonaa in aan xaqiijino joogtaynta amarka iyo weliba kala dambeynta iyo cadaaladda in la horkeeno kuwii mas'uulka ka ahaa dhibkaasi. Abiy Ahmed ayaa waxa uu xusay in wax u muuqday dibadbaxyo ka dhan ah dawladdiisa ay si degdeg ah isugu bedeleen isku dhacyo ku salaysan diin iyo weliba jinsi. waxa uu sheegay in guryo, ganacsiyo iyo weliba goobo lagu cibaadaysto la burburiyay, isla markaana tirada Itoobiyaan ah oo aan si rasmi ah loo ogeyn ay barakaceen. rabshadaha ayaa arbacadii ka bilowday magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyo weliba inta badan gobolka Oromia, kadib markii Jawaar Maxamed oo u ololeeya dadka Oromada uu ciidamada amniga ku eedeeyay in ay soo abaabuleen weerar isaga ka dhan ah eedeymahaasina booliska ay beeniyeen. Jawaar ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa ninkii dhiirigeliyay dibadbaxyadii Itoobiya ka dhacay sanadihii tagay ee hogaaminaya in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu la wareego talada dalkaasi. Abiy iyo Jawaar ayaa labaduba ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo ah tan ugu badan Itoobiya, waxaana xiisada cusub ay halis gelin kartaa in isku dayga Abiy uu ku doonayo in bisha May ee sanadka 2020 loogu doorto ra'iisul wasaaraha dalkaasi 5 sano ee soo socota. hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar al-Baghdadi ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidamada Mareykanka, waxaana sidaasi warinaya warbaahinta Mareykanka. militariga Mareykanka weli si rasmi ah uguma dhawaaqin geerida al-Baghdadi, hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka xalay ku yiri wax aad u weyn ayaa dhacay goordhow. waxyar kadib qoraalkaasi ayaa aqalka cad waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu warweyn shaaca ka qaadi doono 9 subaxnimo xilliga saacadda bari ee Mareykanka. militariga Mareykanka ayaa habeenkii Sabtida gobolka Idlib ee dalka Syria ka fuliyay howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday al-Baghdadi. howlgalka ayaa waxaa toddobaad ka hor ansixiyay madaxweynaha Mareykanka.
ilhaan cumar oo su'aal adag weydiisay wakiilka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya iyo ururka Daesh ayaa waxa ay tiri waa in aan eegno shuruucdeena dibadda meelaha aynan u adeegsan karin nolosha iyo waliba bini aadamka dhiban ayay tiri iyada oo ka hadlaysay duulaanka Turkiga ee Syria. Turkiga ayaa si khasab ah dib ugu celinaya qaxooti Syria ah oo la geynayo xuduudda si loo dejiyo aagga nabadda inkastoo dagaalka uusan weli dhammaan. sidaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. hay'adda kale ee xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch waxay sidoo kale sheegtay in maamulka uu si aan kala sooc lahayn u xirxirayo una musaafirinayo 10 qof oo Suuriya u dhalatay kuwaasi oo la geeyay waqooyiga Syria muddadii u dhaxaysay bishii Janaayo iyo waliba Sebtembar ee sanadkan. 2 isbuuc ka hor Turkiga ayaa bilaabay duulaan uu kaga gudbay xuduudda Suuriya si ay u sameeyaan aag nabad ah oo laga sifeeyay maleeshiyada Kurdiyiinta oo loo kala yaqaano SDF iyo waliba YPG. dawladda Turkiga ayaa maleeshiyadkaasi u aragtay in ay la mid yihiin urur argagixiso. waxay sheegtay in ay yihiin dhinacyo ka tirsan ururka Kurdiyiinta ee 10 sano ka dagaalamaya dhanka Turkiga ee PKK. duulaanka wuxuu bilowday kadib markii ciidamada Mareykanka oo Kurdiyiinta ay ku tiirsanaayeen ay bilaabeen in ay ka baxaan dhanka xuduudda. Turkiga wuxuu ku doodayaa in deegaanada ay qabteen ay dejin doonaan 3.6 milyan oo qof oo qaxooti u dhashay Suuriya kuwaasi oo ka cararay dagaalka sukeeye ee dalkaasi ka jira. ilhaan cumar waxa ay tiri waa in aan xuquuqda iyo sharafta Kurdiyiinta aan asaaska ka dhigno. Donald Trump ayaa dhawaan sheegay in labada dhinac la kala dhax dhigay xabad joojin balse ilhaan ayaa ku doodaysa in Turkiga uu sheegay in uu sii wadayo howlgalka. si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa in ilhaan haatan dagaalkii ay Trump ku haysay ay haatan u jeedisay dhanka madaxweynaha dalka Turkiga iyo waliba taageero ay u fidisay Kurdiyiinta uu Turkigu la dagaalamayo. daawadayaal intaasi waxaa nooga dhan warkii oo aad kala socoteen Kismaayo Cable. intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doona hadduu eebaha awood loo ogolaado waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaan Allah.